Bismillahirrahmanirrahim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Umadayda qaaliga meel dunida ka joogta waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. Salaan kadib waxaan rabaa inaan idin la wadaago sidaan rootigan u samaystay. Xaafadda ayaan rooti u sameeyay. Haddana waxaan rabaa sidaas kugu dardari lahaa. Wax kasta waxaan ku shubay bakeeri caano ah iyo bakeerigaas haafkiisa oo biyo ah, 2 qaando sokor ah iyo 1 qaando oo khamiir ah. Intaas ayaan si fiican isugu walaaqayaa sidaad u jeedaanba. Biyahan wax yar ayay qandac ahaayeen. Sidaas markaan u walaaqo waxaan ku darayaa xabad yar ukun ah, wax yar oo cusbo ah iyo wax yar oo saliid ah ayaan isku daray. Kadibna si fiican ayaan u walaaqayaa. Markii aan si fiican u walaaqo oo si fiican isku dhexgeliyo, kadib ayaan ku dari doonaa burkii. Waxaan u isticmaalayaa shaqshaqaas. Waxaan isticmaalayaa labada caagaas aan ku cabirayo, labadiisa iyo haafkiisa oo bur ayaan rabaa inaan ku isticmaalo. Sidaas ayaan u shaqshaqayaa kadibna waan walaaqi doonaa insha Allah. Sidaad arkaysaanbo qaandada yarta ayaan ku walaaqayaa. Markaan sidaas u walaaqo haddana qayb ayaan ugu darayaa burka, hal mar kuma wada shubin. Waad aragtaan haddana qaybtii kale ayaan hadda ku shubayaa. Masha Allah tabarakallah. Markaan sidaas ugu shubo oo aan sidaas ugu daro burkii, sidaas u walaaqayaa ma noqonaysa inaan qaandada ku walaaqo. Gacanta ayaan gelin doonaa insha Allah. Xoogaa yar waan isku dhexgelinayaa bis bahashan, laakiin gacanta ayaan u isticmaali doonaa. Sidaad arkaysaanba waa kaas waan soo qasay, sidaas ayuu noqday. Haddana waan daboolayaa, bac ayaan saarayaa. Bacdaas ayaan ku daboolayaa kadibna meel ayaan dhigayaa adiga 1 saac ilaa 45 daqiiqo meelahaas. Kadib ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah. Waa kana sida arkaysaanba sidaan ayuu u khamiiray. Ugu daadan rabay xataa masha Allah tabarakallah. Kadib sidaas ayaan u celcelinayaa. Waad aragtaan. Meeshaas ayaan ku shubanayaa. Kadib meesha markaan ku shubto sidaas ayaan isku dhexgelinayaa insha Allah. Bismillah waa kaasa. Waan fidiyay haddana waan isku duubay kadibna cadcad ayaan u jarayaa sidaad arkaysaanba. Kadib sidaas ayaan u kuskuusayaa. Saxanka ayaan soo saari doonaa. Saxanka markii aan ku diyaariyayna waa arki doontaan insha Allah sida uu noqday. Waa kana saxanka ayaa sidaas ugu diyaariyay. Mara ayaan ku daboolay ilaa xoogaa intuu ka soo khamiirayo. Kadib markuu soo khamiiray, caano yar ayaan meesha ku shubtay, wax yar oo sokor ayaan ku daray. Sidaas ayaan iskugu qasay. Kadibna hadda ayaan korka ka marmarinayaa. Waadna arkaysaan wuxuu noqday uu khamiirayay. Waan sugayay intuu wax yar soo kacayo. Marka masha Allah hadda waa kaasa waa aragtaan sidaas ayuu u khamiiray. Sidaas ayaan u marmarinayaa sokortii caanihi aan isku qasay. Si oo aan waxaan ku rabaa inaan ku shubo sisin iyo xabad soodo ayaan rabaa kor inaan ka saaro si marka xabad soodadii sisintii ay ugu dhagto aanan u daadanin rootigana gaduud qurux badan oo igu noqdo. Ayaan u isticmaalayaa caanaha iyo sokorta aan isku daray. Qofba si uu waxbuu isticmaali karaa laakiin labadaas ayaan jeclaystay inaan isticmaalo. Waadna arki doontaan insha Allah sidoo noqon doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa laga yaabaa inaad maqashaan ilmaha hadalkooda ama ciyaartooda. Waa iska taqaanin guri xaafad ciyaal joogo lagama sheekeynayo. Ciyaalku way iska sheeko badan yihiin. Masha Allah sidaas ayaan rabaa inaan rootigii gabiba u soo marmariyo. Markii aan soo marmariyo kulligooda sisinta ayaan ku shuban doonaa. Waan wada gaarsiinayaa si uu gaduud qurux badan igu noqdo. Si fiican ayaan u marmarinayaa. Haddana waxaan rabaa inaan ku soo daro sisintii ayaan ku shubaa. Kaasa sisinta cad ayaan haystaa. Sidaas ayaan korka ugu shubayaa. Wax yar aan yara badnayn ayaan dhag ku siisanayaa ujeedaan. Sidaas markii aan ugu shubo oo aan ku dhameeyo kadib ayaa haddana waxaan ku dari doonaa xabad soodadii oo miraha ahayd. Marka waa kaasa asxaabteyda qaaligiinta ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago. Please haddii aad ka haysaan subscribe inoo saara, like, share gareeya asxaabtiina iyo ehelada inoo daawadaan dhammaan.
haddana sida arkaysaan xabad soodadii ayaan soo qaatay sidaas ayaan ugu shushubayaa iyadana. Marka waa kaasa walaalahayga qaaliga meel walba oo dunida ka joogtaan insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan. Waa kaasa intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. Waadna ku mahadsantihiin daawashadiina. Marka waa kaasa saxanka koowaad, saxanka kaleetana intaas ayuu noqday rootiga aan qasay. saxanka kalena waa kaasa sidaas ayaan kor u marinayaa 5 xabo, laakiin 5 xabo waxba kuma dari doono. Sidan ayaan ku dubayaa sababtoo ah ma jeclo ilmaha qaarkood ayaan jecleen rootiga sisinta iyo xabad soodada leh. Marka waxaan jeclaystay inaan qaybtan saan ku dhaafo qaybta kaleeto bis aan sisinta ku shubo, laakiin kor hoos waxaan u marinayaa inuu rootiga si guduud oo qurux badan ii noqdo. Marka waa kaasha asxaabteeda qaaliga insha Allah markii aan dhameynana waa arki doontaan sida uu noqday rootigii. Waa kaasa markii aan soo bixiyay rootigii sidaas quruxda badan ayuu noqday maasha Allah. Waa kulul yahay. Markaana dib ayaan marada u saaray xoogaa yar kadib haddana waan ka soo qaaday. Marka waxaan rabay inuu dabeesha ku dhacdo maan rabin. Waa kaasa markaa sidaas ayuu noqday ujeedaan. aadka u quruxda badan leh. Waxaan rajeynayaa in aad ka heli doontaan hilmaame hadalku ma jiro. waa kaasa sidaas ayuu noqday. Kii kaleetana waa kaasa sidaas ayuu noqday maasha Allah tabaarakallah. asxaabteeda qaaliga ah waa kaasa rootiga sidaas ayuu noqday, dhexdiisa cajiin ma aha. waa kaasa aad arkaysaan insha Allah. haddana waan jaraynaa gudihiisa siduu noqday si aan u aragno. waa gadaashiisa wuxuu noqday si qurux badan, korkiisa si qurux badan, gudihiisana waa inaan ogaana. marka waa kaasa markii aan jarayna gudihiisa sidaas ayuu noqday. marka kaas asxaabteeda qaaliga intaas ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago. uu kulul yahay wali rootiga. waadna ku mahadsantihiin daawashadiina. hadda waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.